بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد ودرسيني تفسير كها جزء عما نقول لقلي رمضان كا ودرسي سجالات وحنوكو قادم دونا صدح سورات سورة البلد iyo suuratu shamsi iyo suuratu leyl dhammaantood saddexda suuradoodba waa suurado maki ah marxaladii maka ay soo degeen mowduucyo kala duwanna way ka hadlayaan laakiin asaasiyaadka masaa-isha ay ka hadlayaani waa kuwii ay ka hadli jireen suuradaha makiga ah intooduba waxay ku bilaabanayaan dhaar ilaahay dhaaranaya tabaaraka wa tacaala mar isaga isku dhaaranaya mar wuxuu ku dhaaranaya makhluuqaadkiisa qaar kamida san hore u soo sheegnayna Allah tabaaraka wa tacaala isaguna uu isku dhaaran makhluuqiisana waa ku dhaaran sida quraanka aynu ku aragnay laakiin makhluuqu iyagu ilaahay kaliya uma ku dhaaran karaan سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده تبارك وتعالى لا أقسم وأن دارا بهذا البلد بلد كان كدارا وأنت أذيق النبي محمد حل كحلالته بهذا البلد بلد كان حديث ووالد بان كدارنا يا مد وحدلي وماكي ولد ودلي intaasaan ku dhaartay laqad khalaqnaa xaqiiqe waan abuurnay al-insaana insaankii baan abuurnay fii kabadin beer xanuun dhexdiisaan ku abuuray ayaxsabu ma wuxuu malaynayaa insaankii allan yaqdira inuusan kari karin oo awoodi karin calayhi korkiisa axadun cidina waxay la tahay inaysan cidina awood u lahayn يقول وحوليه إسقوا فانيا أهلكت وان بابي وان هلاغي مالا حولا لبدا أو فربدا أيحسب موحو ملينيا أن لم يره إنسان أركين أحد عدن إنسان أركين إن لا لسع عن الميوم وضياوة الله تبارك وتعالى وحكو دارتي بلدك ومكة بلد الأمين سيدا ينص سورة التين إله دون وهذا البلد الأمين بلدك ومكة وأدلك إلهي تبارك وتعالى ماشى أقو خير بدن أقونا فضل بدن أيو إلهي كدارتي تبارك وتعالى شرفت هذا أيو كدارتي وأنت حل بهذا البلد معاني إلى الصدح مفسرين تكفسران وأنت حل مد جنبها تايوال لها ودجنا شاه النبي صلى الله عليه وسلم وخير خلق الله أيام كشرف السيادينية معناها أي مفسرين تؤجبديه واليوم مفسرين السلف وحي هاي إن لي هذا وأنت حل دارتي بالسول دارتي وصعتها لسول حكري هذا الكن وأنت حل مذ حلالات هاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعناها حلال أي أتهاي إنه ما كده حديث كود دجالمه ما كده حديث كود دجالمه محوها دتك قاركود كلاي وكدله قالدي مثلا قاركو كلها النبي صلى الله عليه وسلم marka waa bishaaro oo waxay u bishaareynaysaa ilaa markay soo degaysa ayadani Makka la joogaa nabiguna sallallahu alayhi wasallam magaalada Makka wuxuu furan doonaa yaani soo hijradii kadib 8 sano sanadkii 8aad hijradu furan doonaa marka bishaaray ka dhigan tahay yaani waxa way beledkani xalaal buu ku noqon doonaa inaad ku dagaalanto xadiidka waxa ku tusay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam مكة وبلد إلهي حرمي ما أنتو السماوات كي دولالك أبو ريبو حرمي عدنا بنانانين إنو كدا قالمو إلا أنيقو ساعد لإيبن نيمو يعني كدي بن حرمة دي بيكوسو النقطة مركا وأنت حل حلال باتهايو وحي أدكو سمينيسو وخريدتك اللوغو دي هذيك وكو بنان تهايوها بهذا البلد معناها سيؤبدينهين مفسرين تسلفك ووالد وما ولد ميد وحدلي يكالر دلي يا laga wadaa mufasiriinta salafku waxay u badan yihiin in la yiraahdo waalidku waa aadam wama waladana waa caruurtiisi
sidaa in la yidhaahday u badan yihiin qaarna waxay leeyihin maya wax kasta oo wax dhalaa iyo wax kastoo la dhalaa soo gelaya oo waa caam ayib intaasuu rabbi ku dhaartay tabaaraka watacaala wuxuu ku dhaaranayaa insaanka inuu abuuray xaqiiqee fii kabadin inuu ku abuuray kabadka waxaa la yidhaahdaa waa mashaqada yacni hawsha adag shaqo adag oo beer xanuun leh asalka kabadka waxaa laga keenay beer xanuunka shaqada adag ee ruuxa beerka xanuujisa ee uu ku rafaade ee ku silco ayaa kabadka la yidhaahdaa marka waxaa laga wadaa adduunkan ruuxa intuu joogo wuxuu ku jiraa mukaabada mashaqo uun inuu waajaho oo uu hawl adag ku jiro oo shaqo adag ku jiro oo maraaxil adag maro hawshaasuuna ku jirayaa bini aadamku ilaa maalinkuu ku soo biiray adduunka ilaa intuu ka tegayo markuu ka taga kadib ayuu marka mukaabadada iyo rafaadka iyo beer xanuunka ama wuu ka nasan oo waa mu'minkii markuu dhintuu nasanayaa ama waa gaalkii oo markaasi hawshii adduunyada ku haysatay mid ka daran baa markaa bilaabaysa oo qabrigii iyo cadaabkiisii iyo aakhara iyo ilaa uu midda ugu dambaysa meesha ugu dambaysa ku taga macna sidaas weeyaan marka waa hawshaas adaga bini aadamku uu adduunka ku maraya way macnaha waa mukaabadada iyo shaqadaas adag ee adduunka uu maraya way kadibna Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu la hadlay ibni aadamka qaar moodaya inaan awoodba loo lahayn xogaa markuu intuu bini aadamku wax isbido oo xoog yeesho awood yeesho wuxuu isleeyahay yaa ku kari karaba yaa wax kaa qaban kara ayib ma wuxuu moodayaa inaysan cidina kari karayn markaasuu wuxuu leeyahay haddana faanaya xoolo badan baan baabi'iyey xoolo badan baan halaagay intaasaan bixiyey intaasuu ku fataalay waxaasaan ku sameeyey waa faanaya ma wuxuu u malaynayaa inayna cidina arkaynin markuu xoolaha saa ugu ciyaarayo oo saa u bixinayo oo muxuu ahaay ma wuxuu moodayaa inaan lalaba soconinba insaankii ayib laa uqsimu waan dhaaranayaa bihada albaladi beledkan aan ku dhaaran oo maka ah wa anta adiguna nebi maxamedow xillun baa tahay mid xalaal ah bihada albaladi beledkan dhexdiisoo waa laguu xalaaleeyey wixii aad ku samaynayso dagaal iyo wixii la mid ah wa waalidin mid wax dhalay baan ku dhaartay yowmaa walada kii uu dhalay iyo caruurtiisii wey ubadkii laqad khalaqnaa xaqiiqa waan abuurnay alinsaana insaankii fii kabadin hawl adag dhexdeedaan ku abuurnay ama beer xanuun shaqo adag oo mashaqo oo beer xanuun ah waa adduunyadii iyo howlaheedii waay waxaa la leeyahay laga cabiray sees laga cabiray macnaha ayib ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa an lan yaqdira inuusan kari karin calayhi korkiisa ama yacni in la soo celiyo dib loo soo nooleeyo ma inaan la kari karin buu moodayaa oo aynu cidina awoodi karin calayhi korkiisa axadun cidina yaquulu wuxuu leeyahay ahlagtu waa say dhihi jireenoo way faani jireen carabtu xoolaha ay bixiyaanoo qaar khamro ku cabaanoo qaar ay bixiyaanoo qaar ay ku dagaalamaan waxaanay ku faani jireen yaquulu wuxuu leeyahay ahlagtu waan baabi'iyey maalan xoolo lubadan oo fara badan ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa an lam yarahu inuusan arkaynin axadun cidina inayna cidina arkaynin miyuu moodaya oo lala soconin oo looga daba imaan lala xisaabtami doonin alam najcal miyaanaa yeelin lahu isaga miyaanaa u yeelin caynayni laba indhood walisaanan iyo carab washafatayni iyo laba bishimood wahadaynaahu soo maanaan u cadaynin annajdayni labadii dariiqee caddaa soo maanaan u kala cadayninoo maanaa u kala qeexin falaqtaxama marka muu isku xambaaro muu isku qaado falaqtaxama muu muxuu ahaaye iskumuusan qaadin waaye iskumuusan xambaarin muusan jiidhin alcaqabata jiirtii muusan jiidhin wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey malcaqabatu jiirtu waxay tahay fakku raqabatin waa qoor xoraynteed aw amase icaamun waa quudin fii yowmin maalin dhexdii la quudiyo maalinkaasoo dii masqabatin baahi iyo gaajo daran u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyo agoonkaasoo daa maqrabatin qaraabanimo iyo xigtanimo u saaxiiba aw amase miskiinan miskiin la quudiyo miskiinkaasoo daa matrabatin caradhac u saaxiiba faqriga iyo gaajadu ay dhulka ku ridayo carada yaalla sidaas way macnaha alam najcal lahu caynayni macnaheedu waxa weeye seebuu ugu malaynayaa in aan muxuu ahaayey aan cidina awoodi karin
seebu ugu malaynayaa inayna cidina arkaynin soo Allah tabaaraka wa tacaala intan umuusan samaynin alam naj'al lahu aynayn soomana laba indhood u yeelin oo wax ku arko oo macnaha wax weeyaan wax ku kala arko arab soomana u yeelin uu ku hadlo oo waxa qalbigiisa ku jira uu ku cabiro ku cadaysto bishimahana wax weeyaan hadalkii bay u kaalmeynayaan cunudii iyo hadalkii iyo yaani wax manfaacad badan buu isticmaalaya soomana sida quruxda badan u abuurin waay xubnihiisi qaar kamida oo muhiim ah ayaa la soo qaatay markii sida loo abuuray kadib haddana soo labadii jidmaana u cadeyn wa hadaynaahu najdaynka waxa la yiraahdaa an-najd waa dariiq cad waay labadii dariiq ee cadcada soomaanan u kala cadeynino waa dariiqi khayrka iyo midkii sharka dariiqaas yani waxa lagu cadeeyay ilaahay tabaaraka wa tacaala kutubtu soo dajiyay iyo rusushu soo diray waa lagu kala qeexay waxa lagu yiri dariiqna waa kaasoo naar buu ku dhamaadaa dariiqna waa kaas janno ku dhamaadaa dariiq ilaahay baa yani kuugu cadhoonaya dariiqna ilaahay baa raali kaaga noqonaya labadii dariiq markay way kala cad yihiin ilaahay wuxuu ku cadeeyay kutubta uu soo dajiyay ee rususha u soo dhiibay soo labadii dariiq maana u cadeyn hadii sida loo abuuray labadii dariiqna loo cadeeyay waajibkiisu yahay muxuu yahay marka maxaa munaasibku muxuu yahay munaasibku marka waxa weeye inuu khayrka aado taasa marka waxa la falaqtahama yani khayraadka uu ruuxu sameeyo kuwa ugu fiican qaar kamida marka la cabiray hadiiba ilaahay saa ugu nimceeyay oo sida quruxda badan iyo xubnaha qaaliga siiyay labadii dariiqna u kala qeexo u kala cadeeyay waxa laga rabo muxuu yahay marka falaqtahama waxay tahay marka si uu nicmooyinka uga shukriyo in uu marka jiirta jiiro iqtixaamka waxa la yiraahdaa yani wax weeyaan inuu shayga uu ruuxu isku qaado inuu isku xambaaro inuu qasbado inuu jiiro ayaa la yiraahdaa iqtixaamka la yiraahdaa isku tuurid way macnaha طيب caqabadana waxa la yiraahdaa waa jiirta waa jidka buurta korkeeda ka dhacay taaga ah marka khayrkii iyo wanaagii waxa laga dhigay sidii jidkaasi jiirta ka dhacayo kale jidkaas buurta korkeeda maraya laga dhigay ruuxii inuu sameeyana waxa laga dhigay sidii ruux isqasbahaya oo isxambaaraya oo yani wax weeyaan shay jiirahayo kale oo xoog u galahaya oo si rafaada wixii ku qabanaya laga dhigay laana wax weeye ruuxu khayrka markuu sameeyo waa inuu mujaahada iyo dadaal ku sameeyo waa inuu naftiisa ka adkaado shaytaanka ka adkaado caqabaadka iyo challenge-yada hor yaala kulli inuu jiiro sidaas uu khayrka ku sameyn karaya marka khayrkiina waxa laga dhigay shay meel sare yaalo dadaal badan u baahan ruuxiina waxa la yiri ma gaari kartid inaad isqasabto oo aad xoog isticmaasho jiidha mooyaan markaas waxa caqabadii ba hadana la fasiray jiirtaasi maxay tahay jiirta la leeyahay war raadi oo xoog ku gal oo hel orgaad la leeyahay maxay tahay wama adraaka mal aqaba waxa la yiri waa qoor xoreynteed maxay tahay dadka adoomada ah in adoonnimada laga saaro oo intaad soo iibiso xoolahaaga ku bixiso kadibna aad xoreyso adoonnimada ka saarto waa amal khayr badan waay dambiye fara badan oo bini aadamku galana kafaaradooda waxa la geliyay qoor xoreynteeda laana naf bini aadam inaad xoreyso yani Allah tabaaraka wa taala amaasha ugu jecel yahay bay kamid tahay waxa iyaduna lamida aw it'aamun ama maalin ay gaajo daran jirto abaar jirto rafaad jiro cunto yaraani jirto maalinka isaga inuu ruuxu quudiyo yuu quudinaya agoon ay qaraabo yihiin ama miskiin faqiir ah oo ay faqriga iyo gaajadu dhulka ku riday kicila dhulka yaala labada inuu ruuxu wax taro oo quudiyo ama qoor inuu xoreeyo ayaa waxay tahay jiirta la leeyahay muujiir oo isku qaado yani wax weeyaan waa amal u baahan in aad dadaal iyo xoog iyo inaad naftaada qasabto inaad ku sameeyso u baahan waa falaqtahama yani iskumuusan qaadin ama muusan jiirin alcaqabata jiirtii muusan jiirin
wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey mal caqabatu jiirtu waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey fakku raqabatin waa qoor xoraynteed yani wax weeyaan inaad fakiso oo aad adoonnimada ka fakiso oo aad xorayso xornimadeedii u soo celiso taa way macnaha inta badanna waa dadka addoommada ah gaalo la soo qabsaday way ilaan addoonnimadu si kale kuma timaado diinta waxay ku timaadaa gaalo inta la dagaalamay kadibna gaalnimo lagu soo qabsaday sida addoonnimo ku galay shareecadu marka aad waxay ugu dadaalaysaa in addoonnimada laga saaro la xoreeyo aw amase itcaamun quudin fii yowmin maalin dhexdiisa maalinkaasoo dii masqabatin gaajo daran u saaxiiba maalin aad loo gaajaysan yahay in la quudiyo yatiiman agoon itcaamun quudin yatiiman agoon la quudiyo daa maqrabatin oo qaraabanimo u saaxiiba xigtadaada ah lianna qaraabada waxa la siiyo agoonna waa yahay waa kii si gooniya shareecadu u ammaantay wax siintiisa haddana qaraabanimuu la dheeryahay qaraabada wixii lagu bixiyana waa silatun wa sadaqa waana qaraabo xidhiidhin waana ajirkii sadaqada aw miskiinan ama miskiin aw miskiinan miskiin quudintiis miskiintaasoo daat matrabatin caradhac u saaxiiba yani faqriga iyo dhibka uu gaadhsiiyey inuu dhulka yaallo oo dhulka ka kicla way macnaha uma marka kadibna kaana uu ahaado min aladiina kuwii mid ka mida aamanuu rumeeyey oo watawaasaw dardaarmay bisabri sabirka dardaarmay oo watawaasaw isu dardaarmay bimarxamati naxariistana isu dardaarmay ulaa'ika kuwaasi asxaabulmaymanati midigta asxaabteedii wey waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaatina aayadahana ku gaaloobay oo diiday hum iyagu asxaabulmash'amati bidixda asxaabteedii wey calayhim korkooda naaru naar ba ahaatay mu'sadatun tullu awdahayoo lagu daboolaya ama calayhim korkooda naaru naar ayaa mu'sadatun mid lagu daboolaya markii intaa uu ruuxu sameeyo oo uu wixii ilaahay siiyey wax ka bixiyo oo naftiisa xoog kaga soo qaado oo meelahaas ku bixiyo intaa keliya ma ahee haddana waxaa laga rabaa inuu ka mid noqdo dadka iimaanka la yimid haddana sabirka dardaarmaya ummadda la hadlaya wacyigelinaya ha la sabro oo ilaahay qadarkiisa ha lagu sabro oo macaasida iyo dunuubta ha laga sabro oo taacada ha lagu sabro oo waxbixinta ha lagu sabro sabirka inay dardaarmaan waayo naxariista dardaarmo in laysu naxariisto khalqiga ixsaan loo sameeyo ka baahan muxuu ahaaye ee dhibaataysan in loo turo in wax la siiyo naxariistana dardaarma saasaa la doonaya bimacnaa waxa weeye waxna bixi dadkana ku qalqaali oo ku boori inay naxariistaan ay wax bixiyaan labadaasaa la doonaya in la isku daro macnaha waxaa la yidhahdaa aljamcu bayna ashajaacati waalkaram waaye geesinimo iyo deeqsinimo kulantay waaye ayib dadkaasi sidaa sameeyey oo intay wax bixiyeen haddana wanaagga dardaarmaya oo ummadda wacyigelinta khayrka u sheegaya sabirka u sheegaya yani waxa weye waxaa kale soo geli kara kii dhibaataysnaana inuu sabro kii waxaystayna inuu naxariisto dadkaasi waa dadkii kitaabkooda maalinta qiyaamada midigta laga siin doono waa asxaabulmaymana kuwa waxaa jira iyaga aayaadka ilaahay beeniyoo diiday waxaanoo dhan ku gacan saydhay tashaday kuwa iyagii waa bidixda asxaabteeda naartaana maalinta qiyaamada lagu dabooli doonaa yani naarta marka la galo waa lagu aaburi waa la daboolayaa kama bixi karaan sidaas way macnaha uma markaa kadib kaana uu ahaado min aladiina kuwii mid ka mid sifooyinka markuu la yimaado kadib kaana uu ahaado min aladiina kuwii mid ka mida aamanuu rumeeyey oo watawaasaw dardaarmay bisabri sabirka dardaarmay watawaasaw isu dardaarmay bilmarxamati isu naxariisashada iyo naxariista ulaa'ika kuwaasi asxaabulmaymanati midigta asxaabteedii waay waa dadka kitaabkooda midigta laga siin doono waaladiina kuwa kafaruu gaalooboo diiday biaayaatina aayadahanaga ulaa'ika kuwaasi asxaabulmash'amati bidixda asxaabteedii way waa kuwa kitaabkooda bidixda laga siin doono calayhim korkoodana naaru naar ba ahaatay mu'sadatun tu lagu awdahayo ama lagu daboolayo macnaha suuraddii halkaasay beled inoogu dhammaatay suuratu shamsi baa ku xigta ayaduna waa suura makiya waxaa allah tabaaraka watacaala uu ku bilaabayaa inuu ku dhaarto ilaa 10 isugu jirta makhluuqaadkiisa iyo naftiisa wuxuu rabbi yidhi tabaaraka watacaala washamsi qoraxdii baan ku dhaartay iyo waduxaaha iftiinkeeda barqinkeeda oo iftiinka laga wado walqamari dayixii baan ku dhaartay idaa goortii talaa uu raaco haa qoraxda uu raaco iftiinka markuu ku raaco ama socodka ku raaco
والنهار maalintii baan ku dhaartay idaa goortii jallaa uu faydo haa dhulka basiitada korkiisa dhulka korkiisa markuu faydo iftiimiyo waa والليل habeenkii baan ku dhaartay والنهار maalintii baan ku dhaartay idaa goortii jallaaha uu faydo iftiimiyo ama mugdiga uu faydo والليل habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii yaghshaaha uu daboolo yani wax weeyaan adduunka uu daboolo ama dhulka uu daboolo والسماء samadii baan ku dhaartay iyo wamaa midka banaha dhisay oo maadu Allah waay ma Allah banaha dhisay والارض dhulkii baan ku dhaartay iyo wamaa midka oo Allah dhaxaha fidiyay iyo Allah fidiyay ونفس naf baan ku dhaartay iyo wamaa Allah sawaaha simay abuurkeeda simay oo faalhamaha ku ilhaamiyay fujuuraha faajirnimadeeda dambiyadeeda iyo xumaanteeda macaasideeda iyo taqwaha alla ka cabsigeeda intaasaan ku dhaartay qad aflaha walibaanay man ruuxi zakaaha nafta daahiriyay waqad khaaba haqiiqi uu khasaaray man cidi dasaaha nafta qariyay ama duugay asaguna waa khasaaray toban way dhaarood markii la isku daro qad aflaha man zakaaha waqad khaaba man dasaaha way meesha loo socdo qorraxdu ilaahay ku dhaartay waa makhluuqaasi weyniga badan manaafacaadka faraha badanna ku jiro ilaahay awoodiisa iyo qudradiisana ku tusay iyo iftiinkeeda duxaaga waxa la yiraahdaa waa barqinka laakiin waa xilliga qorraxdu ugu iftiin badan tahay baa la yiraahdaayo iftiinkeeda laga wada wal qamari idha talaha dayhu markuu raaco wuxuu raacayaa damiirka talaha wuxuu noqonayaa qorraxdii buu raacayaa see ku raacaya iftiinkii buu ku raacayaa qorraxda iftiinkeedu markuu baxo iftiinkii dayaxa soo galay sidaas waa la yiraahdaa waxa kale oo la yiraahdaa yani ma ahe niska hore yani 15 hore dayaxu qorraxdu markay dhacdo daba galaya oo markay sii dhacayso dabcan uu la socda uu ka hadhaya kadibna uu raacaya uu daba soconaya macnaha maalintii baan alla ku dhaartay buu leeyahay idaa jallaaha basiitada ama dhulka korkiisa markuu iftiimiyo faydo oo kala cadeeyo way macnaha ama mugdigii dhulka korkiisa aha ee habeennimadii markay maalintu faydo ay meesha ka saarto habeenkii baan ku dhaartay idaa yaghshaaha markuu daboolo mugdigiisa markuu ku daboolo dhulka ku daboolo korkiisa samadii baan ku dhaartay buu alla yiri wama banaaha iyo Allah dhisay maadu bimacna alladhi way walladhi banaaha iyo midka dhisay oo Allah tabaaraka wa taala waa makhluuqaad waaweyno kulligood ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa ku tusayaan waana makhluuqaad kulligood nicamaho bini aadamka waxay ugu fadhiyaan macna weyn waa makhluuqaad mid kale aayaat min aayaati ilaahi wayo ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa ku tusayaan sifaadka ilaahay iyo sifaatul kamaalka baa laga faa'iideysanaya intaas oo dhan bay faa'iideynayaan was-samaa'i wama banaaha wal ardi dhulkii baan ku dhaartay wama taxaha allaha fidiyay ee u fidiyay in lagu dul noolaado aadamaha u fidiyay makhluuqaadka u fidiyay si ay ugu dul noolaadaan wa nafsin wama sawaaha wa nafta ilaahay simay oo uu si qurux badan u abuuray yani waxa way khalaqaha sawiyatan mustaqima naftii buu ilaahay abuuray iyadoo siman oo toosan laba macnaba waa la yiraahdaa ayadoo fitradii ilaahay ku abuuray ku sugan ama ma ahe abuurkeeda lafteedu ilaahay tabaaraka wa taala uu simay waa la yiraahdaa naftan maxaa laga wadaa marka qaar waxay waa naf oo dhan naf ilaahay abuuray oo dhan ayaa soo galaysa waa ruuxdii markaas ama waxa laga wadaa oo gooni ahaan laga wadaa sida culimada qaar kood leeyihiin aabaheen aadam عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ووحي ليهين مخلوقات كإلهي أبوري بأقدم به ما ننشم عابا لأبوري يعني وحويان وانا مخلوقات كإنتو ذكر مرك الله أبوري بني آدم كأقدم به إلهي أبوري تبارك وتعالى مرك آدم بالغا وضانا ورأيك له طيب فألهمها مركو إلهي نفط أبوري أيو إلهي تبارك وتعالى وحو أعدي وحو كو إلهامي إلهامين توحوي إن قلبك لقاك ليو أما أوجيسين ده أما فهمسين ده أما إلهامين بمعنى أنتو فهمسيي أو أوجيسيي يهدنا أنت كلية لقمة دينين هدنا قلبك لوق جلي ولو قنعي ولو قنعي فألهمها فجورها مركا نفتي مدينة مركي يعني وحويا أي حوجيستوي كرتبة
markaaba waxay aadaysaa macaasida iyo fujuurka iyo dembiyada iyo gaalnimada iyo xumaanta ay aadaysaa midina markaaba waxa qalbigeeda ku jira wanaagga iyo khayrka iyo tawxiidka iyo taacada iyo akhlaaqda wanaagsan iyo dhankaas ay aadaysaa labadaba ilaahay baa ku kala ilhaamiyeeyo waa ilaahay qadarkiisa way alqada wal qadar way bimaana wax weeyaan waxay tilmaamaysaa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa maamul ilaahay way ilaahay baa sida u qadaray tabaaraka wa taala waxana macnaha ku tusay xadiidka Imraan ibn Husayn nin ree Muzayna ama ree Juhayna ayaa rasuulka u yimid sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri ya rasuulallah ara'ayta ma ya'malu an-nasu bal kawaran waxay dadku sameynayaan fiihi wa yatakadahun waxa dadku ay ku rafaasan yihiin iyo dadaalkan ay bixinayaan bal kawaran ma shay ilaahay horay u qorayba oo qadar hore iyo qorshe hore u dhacay miya mise waa shay iyagu hadda ay bilaabanayaan oo cusub oo aan horay u qornayn markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam bal shay'un qad qada Allahu alayhim may waa wax ilaahay horay u qoray buu ahaa wax la xukumay oo la qorsheeyay oo la qoondeeyay way markaas wuxuu yiri marka fa fiima al-amal fa fiima na'mal maxaan marka u dadaalkan maxaan u bixinaynaa waxa cibaadadan iyo dadaalkan iyo waxaan u sameeynaynaa waxna duuba horay looga faaruqayba wax horay loo qoro loo qorsheeyay haduuba yahayba maxaan isu dhibaynaa marka maxaan u dadaalaynaa markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam man kana Allahu khalaqahu li ihda al-manzilatayn yuhayyi'uhu laha ruuxi ilaahay oo labada boos midkood u abuuray tii uu abuuray buu ilaahay u diyaarinayaa wa tasdiiqu dhalika fi kitaabillah arintana daliilkeedu iyo rumaynteedu kitaabka ilaahay bay ku taala markaasuu aayadan akhriyay fa alhamaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha marka yani wax weeyaan bini aadamku meel ma fadhiisanayo وهمام وحارث واي ابن آدم كو قصب واي إنه فكره إنه حبنيه سو دقدقاقان waa qasab meel fadhiisan maayo hadiiba uusan meel fadhiisan shaqeynayo wuxuu sameeynayo waa wax horay u qorsheysan sax waa wax qadaran laakiin kii janno iyo khayr loo qorayo ilaahay agtiisa uga qoran tahayna jidkii jannada ayaa loo diyaarinayaa oo loo fududeynayaa kii naar loo qoro ilaahay agtiisa naar uga qoran tahayna jidkii naarta iyo xumaantii iyo xaggaas loo fududeynaya oo loo diyaarinaya amal falaway marka inta kale wax ilaahay agtiisa ka qoran ma taqaanid adiga dadaal waa saas way wa nafsin wama sawaha oo fa alhamaha ku ilhaamiyay oo intuu u cadeeyay ogeysiiyay qalbigana ka galiyay fujuraha macsiyadeeda iyo xumaanteeda dambiyada ay galayso wa taqwaha iyo alla ka cabsigeeda allah u qadaray qoondeeyay qalbiga ka galiyay ee ku qanciyay waa intaasaan ku dhaartay buu Allah qad aflaha walibaanay man idzakaha daahirisay ha bini aadamka liibaantiisu waxay ku jirtaa naftan ilaahay uu siiyay inuu ka shaqeeyo u fiirsada nafta daahirinteeda iyo aasideeda isaga loo tiiriyay iyadoo ilaahay qadaray ayaa haddana waxa la yiri inaad naftaada daahiriso iyo inaad aastood wasakhayso labadaba adaa iskale dadaalkaagayna ku xidhanta qad aflaha waxa liibaanay man zakaaha yani waa adoonka ficilkiisa waa adoonku inuu ikhtiyaar leeyahay oo uu leeyahay doonitaan leeyahay oo uu kasab iyo ficil leeyahay ayay sugaysaa qad aflaha man zakaaha oo aayada hore laga yaabo dadka qaar kood inay ka fahmaan oo waxan kada tahduuba ilaahay uu baqaray yani ku ilhaamiyo waxan horeyna loo qoray fiima al-amal halka kadib yani si loo cadeeyaa waxa la yiri maye adigu doonitaanna waad leedahay khiyaarna waad leedahay waadna samayn kartaa waad isdaahirin kartaa waadna iswasakhayn kartaa adiga khiyaar baad leedahay labada mid samee saas way macna hadad kan samaysana waa liibaan hadad kan samaysana waa khasaaro way macna sidaas weeyaan saas daraadeed ayaa bini aadamka khasaarihiisa iyo liibaantiisa waxay ku xidhantahay isagu jidku isqaadsiyo iyo sidoo isagu u dadaalo nafta daahirinteedu wax weeyaan oo taskiyada naftu waa iimaanka iyo amalka saalixa waxa nafta lagu dhaqo ee lagu nadiifiyo ee lagu daahiriyo ee lagu hagaajiyo kowa iimaanka mabadiida iimaanka waa laana shirkigi iyo wasaqdiisii bay nafta ka daahirinaysa marka labaadna nafta waxa lagu daahiriyaa waa taacada amalka saalixa ilaahay ku xidhanto
naftii way dhaqmaysaa daahir bay noqonaysaa akhlaaqdii xumayd bay ka tegaysaa iyada dhanba waxay noqonaysaa shay daahir oo nadiif ay noqonaysaa naftu waxa wasakheeya ee dila ee aasa ee qiimo dila waxa weeyaan waa shirkiga gaalnimada marka xigtana waa dembiyada marka labadaas way saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wa kan soo marnayba suuratul a'la baan ku soo marnay qad aflaha man tazakka ruuxi isdaahiriya walibanaya wa macna nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ducadiisi bay ahayd yani allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha ilahu nafta ii daahiri marka waxay kamid tahay ducada yani waxyaabaha nafta lagu daahiriyo قد أفلح وحا ليباني من عدي زكاها طبنكا دارود وحا لوغو دارتي قد أفلح روح وحا ليباني من روحي زكاها نفتاس ظاهرية أو إيمان يضاع إلهي كو ظاهرية وقد خاب وحا هوغي وخساري من عدة دساها نفتا يعني وحوي دوكتي أما يعني وحويان قريسي دسيك وحا لإلادا ونسقامينتا وحقريدا وآسيدا ودوغيدا ونفط مركا دنبي iyo qashin geliso qiimaheedii oo dhan baad dishay halaag iyo meel xun baad ugu soo noqotay macna intaas rabbi ku dhaartay tabaaraka wa taala waxa marka kula gudboon adiga inaad dadaal la timaado oo shaqaysato oo isnadiifiso oo isdaahiriso oo xumaanta ka fogaato taasaad muxuu ahay ku liibaanaysa hadii aad yeeli weydana khasaara diyaar ku adduunyo aakhiraba Allah tabaaraka wa taala marka wuxuu soo qaatay inta kadib niman intay isdaahirin waayeen khasaarahoodii miisaal waay markii qaacidadii la dhigay ayaa miisaal la bixinaya miisaal ummadihii tagay mid kamid ah tusaale lagu bixinay alla wuxuu yiri kadabad way beenisay thamud ree thamud waa beeniyeen bitaqwaha qooqeeda qooqida ay qooqday darteed ama qooqideeda sababteeda bay ku beenisay sababta inay yani beeniso keentay rasuulka inay beeniso oo alla beeniso oo kitaabkii loo soo diray beeniso maxaa ku kalifay bitaqwaha qooqeeda iyo qooqideeda sababteed way kibirtay kibirkii baa wuxuu gaarsiiyay inay diidaan xaqii id waqti bay muxuu ahay beenisay thamud in ba'atha u bihitimay ashqaha ree thamudkii ugu nasiib xuma ree thamud waa qoladii loo diray nabi saalix baa loo diray marka waxay ahaayeen sida culimadu leeyihiin yani ummadihii la halaagay kuwa ugu halaag fududna way ahaayeen dambiyada lagu halaagay ummadaha quraanku ka sheekay kuwa ugu dambi fududna way ahaayeen iyaga marka miisaal baa loo soo qaadanaya tayib kadaba thamud waa beenisay bitaqwaha qooqeeda sababtiisay ku beeniyeen id waqti bay beeniyeen in ba'atha ashqaha nabi saalix markuu u tagay oo xaqi u sheego war ilaahi rumeeya ya xaqana qaata markuu ku yiri waxay codsadeen noo keen aayad calaamad aan kugu aqoonsiin mucjizo noo keen neef baa loo soo saaray hal baa loo soo saaray marka hashi loo soo saaray ayaa imtixaan looga dhigay iyagii codsaday markay codsadeen oo codsigoodii laga jawaabayna codsigii baa imtixaan looga dhigay waxa la yiri hashani meesha aad ka cabtaan maceel ba mawabiba meesha aad ka cabaysaan maalina iyada iska leh maalina idinka iska leh maalinkeeda ha u tagina kalkeeda ha ugu tagina ha u dhawaanina markii tii way u dul qaadan waaye markaasay hashi ay dileen طيب id waqti ayaa beenisay thamud in ba'atha u bihitimay ashqaha markay hasha inay dilaan go'aansadeen go'aan bay ku qaateen hasha inay ka takhalusaan markaasay tashadeen wariyaa hawsha fulinaya leeyahay mid khayr daran oo kii ugu khayr darnaa ayaa hasha dilkeedu u soo baxay marka aniga haliigu ogaado kaas way id waqti in ba'atha u soo bihitimay ashqaha thamud midkoodii ugu nasiib xuma ee ugu khayr darnaa ayaa soo baxay wuxuu u soo baxay hasha inuu dilo faqala markaasa waxa uu yiri lahum iyaga rasuulullaahi rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yiri waa saalix nabi saalix baa wuxuu ku yiri iyagii naaqatallah ihdaru naaqatallah war hasha ilaahi iska jira wasuqiyaha iyo cabideeda hasha ilaahi iyo kalkeeda iyo cabideeda daaya war hay isugu dhawaanina saasuu ku yiri tayib war ka jooga u fiirso ayagoo dhan buu hadalka u jeedinaya laana ninkan hasha dili doona go'aanka keligii ma lahayna waa la isla qaatay gacanta buu lahaa iyo fulinta fakadabuhu way beeniyeen nabi saalix taladiisii ahayd war ka jooga war hasha daaya way beeniyeen
facaqaruuha hashiina way boqon gooyeen way dileen yani boqontay ku dhufteen kadibna way ka takhaluseen fadamdama wuu halaagay calayhim korkooda rabbuhum rabbigood baa halaagay bidambihim dembigoodii sababtiisu ku halaagay fasawaaha damdamadii iyo halaagiina waa ku simay mid kama fakanin ama fasawaaha dhulkuu la simay allah tabaaraka wa tacaala wuu halaagayo wuu rogo wuu baabi'iyey ayib walaa yakhaafu alla kama baqayo cuqbahaa damdamadaa iyo halaagaa uu halaagay ciribteeda dambana ka baqi maayo allah tabaaraka wa tacaala kama baqayo falkan uu sameeyey iyo halaaga uu ku sameeyey amaa wax ka daba yimaadaan amaa lagaaga daba yimaadaa amaa laguu qabsadaa ama wax lagaaga soo baxaan isma dhahayo waxaa ka duwan makhluuqa markuu wax sameeyo xataa si kasta ha u xoog badnaado wuxuu leeyahay ruuxan amaa lagaaga daba yimaadaa ciribteeda dambe amay yani wax way dhib kaa soo gaadhaa ama ilaahay buu rumaysan war xagga alla ama wax kaaga yimaadon laguu qabsada aakharo ama ciddan uu dhibka u geystay laftiisuba leeyahay war ama wax ka yimaadaan laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala isagu walaa yakhaafu cuqbaaha ciribteeda dambe iyo wax ka imaan kara alla kama baqayo tabaaraka wa tacaala sidaasaa reer thamuud loo baabi'iyey markay rasuulkii beeniyeen tilaabadaana qaadeen miaal marka waxay u tahay naf wasakhowday oo la daahirin waayey oo iimaankii diiday oo isdaahirin weyday nafta noocaasoo kale ah way khasaaraysaa soo ilaahay kuma dhaaranin tusaalaheedu reer thamuud baaba tusaale ah weliba iyagaa ugu roone kuwa kaleba ka sii daranba qur-aanku uusan ka sheekaynin laakiin waa tambiih tan fudud baa waxay inagu baraarujinaysaa kuwa ka sii daran macnaheedu waxa warka murtidiisa marka la soo ururiyo intaasoo dhan wuxuu u dhacayaa bini aadanu naftaada ka shaqee oo isdaahiri oo ishagaaji oo dadaal oo iimaanka iyo camalka saalixa ku dadaal oo xumaanta ka tag sidaas way macnaha suuradda saddexaad ee darsigeenani waa suuratu leyl ayadana waa suura makiya waaye ayib ayadana waxay ku bilaabanaysaa dhaar rabbi tabaaraka wa tacaala uu dhaaranayo alla wuxuu yidhi walleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii yaqshaa uu daboolo khalaa'iqda markuu mugdigiisa ku daboolo wannahaari maalintii baan ku dhaartay idaa goortii tajallaa uu muuqdo ama faydmo maalintii markuu faydmo oo uu maalinku wuxuu ku faydmayaa mugdigii baa baxay wamaa allihii baan ku dhaartay khalaqa abuuray addakara labka iyo walunthaa dhadiga min nutfatin idaa tumna waa hal biyo ah oo hal mar la tuuray ayaa wuxuu ka abuuray dhadig iyo lab intaasaan ku dhaartay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala ina sacyakum camalkiinu la shataa waa kala tagsan yahay waa mid kala duwan oo kala tagsan isku mid maaha way macna ayib ina sacyakum aadamihiyow camalkiinu la shataa waa mid kala tagsan see u kala tagsan yahay waa la sii faahfaahiyey fa amaa man ruuxii actaa siiya wixii bixi la yidhi bixiya xuquuqda guta oo wattaqa is-ilaaliya wixii iska ilaali yidhana iska ilaaliya oo wasadaqa rumeeya bilxusnaa midii wanaagga badnayd oo kelimadii towxiidka ah ama xaqii ah ama jannadii ah fasanuyasiruhu waanu diyaarinaynaa isaga lilyusraa xaaladii ugu fududayd baanu u diyaarinaynaa ama waanu fududaynaynaayo xaaladii ugu fududayd yaanu ku fududaynaynaa wa amaa man qola waa qoladaas wa amaa man ruuxii bakhila bakhaylay oo wastaqnaa deeqtoomay ayib wixii bixi la yidhi ayuu ku bakhaylay waa ku gacan adayga wastaqnaa waa deeqtoomayoo adduunkiiyo shahawaadkiisiibuu ku deeqtoomay khayrkii iyo wanaaggii wixii ilaahay soo dejiyena waa ka deeqtoomay oo wakadaba beeniya bilxusnaa kelimadii towxiidkana beeniya iyo xaqii ama jannadii aakhara beeniya fasanuyasiruhu isagana waanu diyaarin lilcusraa fasanuyasiruhu waanu diyaarin lilcusraa arintii ugu cuslayd baanu u diyaarinaynaa ama aanu yani u fududaynaynaa wamaa yuqni deeqi maayo canhu xaggiisa maaluhu xoolihiisii waxba ka deeqi maayaan waxba ka tari maayaan idaa goortii taraddaa uu halaagsamo ama uu naarta ku shalwado ku dhaco ayib sidaas weeyaan habeenkii buu ilaahay ku dhaartay markuu adduunka daboolo waa aaya min aayaati illaahi tabaaraka wa tacaala maalintii markay
faydanto sidoo kale waa labadaas yani isdaba maraya markuu habeenku yimaado maalintii baa baxaysa maalintu markay soo gashana habeenkii baa baxaya way isdaba joogaan way is cirbinayaan طيب waa ilaahay aayaadkiisa waaweyn bay kamid tahay yani wax weeyaan waxan socda ee nidaamka ku socda ee aan isdaba maraynin ee meeshan maalin sugayna habeen iimaanaynin meeshan habeen sugaynana maalin iimaanaynin isma daba marayaan waa nidaam daqiiq ah oo haba yaraatee khalal uusan ku dhacaynin iftiinkii oon u baahannahay inaynu ku shaqaysano habeenkii u baahannahay inaynu nasanno oo aynu raaxaysano allah abuuray labkiya dhadiga way iska soo horjeedaan hal biyo ah oo raximka galay ayuu ilaahay wuxuu ka abuurayaa marna dhadi ka abuurayaa marna lab ka abuurayaa marna isla biyihii ayuu ilaahay wuxuu ka abuurayaa yani wax mataano oo midna lab yahay midna dhadig yahay ilaahay baa ka abuuray tabaaraka wa taala awoodda ilaahay iyo qudradiisa ku tusaysa allah wuxuu ku dhaartay marka camalkiinu waa kala tagsan yahay isku mid maaha camal kala duwan ayaad leedihiin yani wax weeyaan ninba dhinac buu u jihaystay waa sida camalkii u kala duwan yahay baa marka faahfaahin laga bixiyay dadku waa laba fa amma man a'ta wa qolada hore waa dad bixiyay xuquuqdii lagu lahaa a'ta siiyay xaqi ilaahay buu bixiyay xaqi khalqigu iska guday yani wax way iimaankii buu bixiyay yani khayrkii buu bixiyay xuquuqdii xoolihiisu bixiyay a'ta waa wixii lagaaga baahnaa oo dhan bixinteeda waa wuu siiyay wattaqana waa is ilaalintiyo wixii ilaahay ka xaraameeyay buu iska ilaaliyay wixii loo dirayna waa sameeyo waa bixiyay wixii laga reebayna wattaqa waa iska ilaaliyo waa iska dhowray shirkigii iyo macaasidiina waa iska ilaaliyay wasaddaqa bil husnana waxa weey waa tasdiiqi waay laana diintu intaas ku yani waxa weey sideedaba tiirarkaas ay ku salaysan tahay wixii war ee lagu sheegay rumee wasaddaqa bil husna waa wixii lagu faray fuli oo samee ma man a'ta waa wixii laga rabay ka tag wattaqa waa waa diintaaba inta ku eegba wax bixi lagu yiri wixii ka tag lagu ka tag wixii war ee lagu sheegay rumee sida ruuxii sameeyay fasanu yasiruhu lil yusra waa markaas waxa weey waxa loo diyaarinayaa ama loo fududeynayaa tii fududeeyay dariiqa fudud ama xaaladda fudud ee jannada marka dama gaadha ayaa loo fududeynaya طيب بالحسنى هذا وحي علماء قاركود ليهين الحسنى وكلمة التوحيد أما والكلمة كستو وناكسن أما واتشندي انت بوليد هذا طيب قلوا لبعض وحي بحية اللي يلي بيكون بخيلان إيمانك يا خيرك يا طاعدي يا حقوقي أما حوله هذا أما نفط هذا ويدي ذني بحيان طيب واستغنى معاصدي iyo dunuubtii iyo shahawaadkii adduunyadana uu ku kaaftoomo uu ku maarmay wax kale oo marraba iyada kaliya tuu haysta طيب waa wixii daal la yiri wixii rumeel la yirina waa beeniyay warkii loo sheego dhawaa beeniyay aakhira jirta waa beeniyay waa lagu la xisaabtami waa beeniyay kitaabu ilaahi soo dejiyay waa beeniyay rasuul buu soo diray waa beeniyay wakadaba bil husna kalimadii tawxiidkiyo iyo muqtadayaadkeedii lawaasimteedii waa iyadana waa beeniyay ka isagana waa la diyaarinaa waxa loo diyaarinayaa midii culayska badnayd waa dariiqii naarta loo mareeyay naartii iyo dariiqeedii iyo xumaantii baa marka isagana loo diyaarinaya halkaas loo diraya way macna kaasi markuu naarta galana xoolihiisii waxba u tari maayaan madaxnimadii waxba tari mayso magacaad lahayd waxba tari maayo waxba kuma qaban kara way macna طيب والليل habeenkii baan ku dhaartay ida goortii yaqsha uu daboolo khalqiga والنهار مالنتي بان ku dhaartay ida goortii tajalla uu muuqdo ama uu faydmo iyo wama Allah khalaqa abuuray adhakara iyo wal untha dadiga abuuray labkiya dadiga abuuran ku dhaartay inna sa'yikum amalkiinu la shatta wa ku kala tagsan waa sida amalku uu kala tagsan yahay ayay aakhira iyagoo kala tagsan iman doonaan طيب فاما من اعطى halka xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam isagana oo ku soo arooray oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay isagoo saxaabadu ay janaasada joogan xadiidka Ali ibn Abi Talib ba su'aasha la weydiiyay rasuulka ilaahayow waxaan hadayba fududeyn ilaahay tahay oo midkan xaqan uu fududeynayo midna xagga uu diyaariyay midna xagga uu diyaariyay maxaan amal falaynaa bay dhaheen markaas nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam amma ahlu as-sa'adati fayuyassaruna li'amali ahli as-sa'ada
وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ آيات مركا أخري ضدك إله النار وقلت لقلينا عملك أهل النار كالله ديار والله فضينيه ضدك إلهي وجنة وناق وقلت لقلينا عملك أهل الجنة يددك الليبانتا عمل كودي رقم كودا الله فضينيه الشقي عمل فلب النبي صلى الله عليه وسلم كدبنا آيات وأخري فأما من أعطى واتقى بخاري بصوص على حديث كاس فأما من روحي أعطى سيا وحي بحي اللي يري حقوق دي سيا أو واتقى إسئلالية وحي إسكتشرو إسكإلالية أو صدق الرمية بالحسنى تي وناك بالنيد وكلمة دي وناك سنيد أما تشندي الرمية فسنيسيره وانو ديارينينا نهيئه هو أما وانو فضودينينا لليسرى تي فضيت حالة دي أو فضيت بالنيد وهو خير كي طاعة إلى تشند اللي قاعد وأما من روحي بخيلة أو وحي بحي اللي يريكو بخيلة واستغنى ديقتومه نفتي سيو شهوات كالدنيا دي كو كافتومه وحكى يعني إنه أباهي خير إيه الدين إيه كتاب لسودي شيء طاعي إنه أباهي باسم أركو وديقتوم إنت نوبكو كافتومه با وهو كذب بينيه بالحسنى تي وهو ناكسنين بينيه ومعناه وحوي التوحيد كي أما حقي بينيه فسنيسره إساقا وانو ديارينينا إساقنا للعسرى حالدي أقول عليس بالنيد بانو ديارينينا أما أفضديننا كل بكاء دهضب طيب وما يغني ديقي مايو وحبك الديقي مايو عنه حقي سماله حوليس إذا قرتي تردى أوشال وضو نار تمركو كوهبتو وكوها لك سموي معنا إن علينا كوركا نقوحا هذا للهدى هنون تعدينت حقي باطل كإنا كلا عدينا أنك النصارى طيب أليل وإن لنا أنك أي نوسقنا ذي للآخرة مدة الدنب والأولى تهرئ أدون كنا أني قالوا ألا ليه تدنب آخرنا أني قالوا لبض وقعنت إذي كتشران فأنذرتكم مركا وحان إذين كدق يا آدميه نار بان إذين كدق يا تلظى أو يعني هريس هالعيس طيب لا يصلها نار تاسو لا يصلها إسنقلين إلا الأشقى أما لا يصلها نار تامقليو إلا الأشقى متك أقول أردرا أما الروح أقول نصيب حن خلقك مويه الذي كاسو كذب بينيي وحي الرميل اللي يروا بينيي مبادئ إيمانك بيني أو تولى تشيسدي أو كتشيسدي عمل كينا كتشيسدي إيمان كينا بيني عمل كينا كتشيسي كاسوة إن علينا للهدى وحيلم تهي وهديناه النجدين أو كلواه وهداية النوع اللي يقال هداية البيان وعدين يقيحد واي ألا وحليه أنيقى إسارنتهي إن أن إذين كلا عديو شيدك وناكسن يميتك حن محالو كلا عدي كتابته إلهي سودة شيء يرسول سو صدره هديبا كتابنا كسو قاعد الرسولنا لغو صدره عذر دار مليهد مركا وركو عديه طيب آخرية أدونا لبضب أنيق عليه ألا ليه تبارك وتعالى وإن لنا للآخرة والأولى لبضب أنيق عليه لبضب إلهي بقى معمولي سيقاق عنتك وهي سيدو دونو كي إليا وحو دونو قيبينيا سيدو دونو قيبينيا مر هدي سيداس تاهي نار بان إدين كدقيا هل عيسى والله الشيديو يعني الشيديتان كيدي هل عيدو وسيسي هذي طيب نار تايا قلي يوي وحا قلي الروح داتك أقول نصيب حن كاسو وحو كو قلي وابيني وحي الرمال ليري وحي السماء ليرينا وكتشيسدي كاسا نارتا قليه ورنارتا اسكتشرا واسكا إلالية إلهي تبارك وتعالى وإنو الدقيا ونفتيسو إنو قد دقيا ووحا صوص صعودة أيو إنو سي الشيقيا سيدان محوها لينو قرين مايو لين الدقين مايو لين مصري وحبا لينو قرين مايو وحالو ليه هاي أذر وكا بنانك يتالا وركو عادي هاي ماشي هتمر لا أذيك تعالى مركب وحاسي وحقائق شرطة صوص عتوه إن علينا كرك نجا وح هذا للهدى هنونين عدين بالجودا إن الحق يبادل كلا عدينه وإن لنا نجا نوصلنا إلى الآخرة كلي جنا إسكالة وإلى الآخرة مد الدنب يول الأولى مد هور اللبضبا فأنذرتكم واردين دجيا بني آدم نار بن إدين كدجيا تلظى وهريسه العيسى لا يصلها نار تجلي مايو إلا الأشقى مدك أقول نصيب حن أضمضة مويه الذي كاسو كذب بيني وتولى جسدي وسيجنبها نار تيا لقى فوقين ياوه كاسي واكيكو جبني جلي يا كفوقاني وسيجنبها وحلقت ديرين يا نارتا سيجنب ولا ديرين يا ها نارتا وحلقت ديرين يا
الأتقى مدك أقو عبس بدن الدومة إلهي مدك إسقو إلالين بدن الذي كاسو يؤتي سيا ماله حوله سيا يتزكى حاله إسقو ظاهرين إسقو ظاهرين أو بخيل لماذا إسقو ظاهرين أو حمانة إسقو ظاهرين أو ذنوبة إسقو ظاهرين أي حوله بحنية والحال بو يعني حوله سينية ما لأحد عدنا أيسن أسقنان عنده أكتيسة من نعمة وح أبال أو تجزى لقى أبال قدو أبال قدو هيو يسوع عدنا أيسن كلهين عدك عن كل ما تشرته أو أبال قدي طيب إلا ابتغاء وجه ربي وجهي سرادين ورادين يموي وحكى لهم بحنيه وحو وجهي ربي يرضاها إلهي رادين يسكر بحنيه ربي الأعلى وسريي خلقي سكود سري ولا سوف يرضى رالبون النقون دوناوي مركو إلهي أتقو وحو كقنعو الرالي كو نقضى الله السينية علماء مفسرين تين بدن وحي كليهين آيادني وحي كهل ليسا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه صديق هذه الأمة أي كهل ليسا قاروا يكسو دكتبي ليه لكن يعني وحويان شك ملها عدة أقوه الرئيسي قليسا إنو أبو بكريه محايا لي سيدا النبي أحاديث فربضان كقصوغان نينكا النبي صلى الله عليه وسلم حوليه سكو قرب استاغي ورسول قول صلى الله عليه وسلم يعني مركي دادكو أي بينيين أبو بكر با الرميي حوليه سنة يقو قرب استاغي حولها أبو بكر صيئي أنفعين حولك لإما أنفعين مركو النبي صدقاء أمري حوليه سيبو وضا كياني ماشا عمر ولا ترتمي حولها النسكي ضو كياني ومالكو كهري دونوي markaasuu nabigu wuxuu yiri yaad uga soo tagtay markaasuu yiri yaani ilmahaagi wixii ilaahay baan uga soo tagay buu marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wax gooniyo Abu Bakar oo muxuu ahay uu nabigu siiyay oo gacan aan diinta uu baray ahayn kumuusan lahayn laakiin Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ardaa xoolihi zamaaninku nabiga rumeeyay isagana yaani wax way rag ninkii ugu horeeyay rumeeyay buu ahaa marka Khadiija laga reebo ragga isaga ugu horeeyay nabiga rumeeyay sallallahu alayhi wasallam hadana maca dalika maalinka laga bilaabo xoolihiisu si ugu garab taagnaa buu nabigu ku geeriyooday sallallahu alayhi wasallam marka cid wasfigan iyo sifadan aayadu sheegaysa Abu Bakar ka mudani ma jirto saas daraadeed baa mufassiriinta badankood waxay marayaan aayadani inay ka hadlayso Abu Bakar ka hadlayso ficlan wax ka mudani ma jirto oo sifaadkan isaga ayaa cidda ugu horeysay ku rumoobaysa wasayujannabuha waxa laga fogeynayaa naarta iyada al-atqa isaga khaas kuma aha laakiin waxa weeye cid kasto sifaadkan iska laho dhan baa soo galaysa naarta waxa laga fogeynayaa al-atqa midka ugu cabsi badan isugu ilaalinta badan adoomada alladii kaasoo yu'tisiya maalahu xoolihiisa yatazakka isagoo isku daahirinaya xooluhu waa dahaaro yaani sakada waajibka ha noqdeen ama sadaqada ha noqdeen ruuxana waa daahirinayaan xoolaha laga bixinayna way daahirinayaan wama li ahadin markuu xoolihiisa bixinayana cid abaal kule oo u abaal gudaya ma jirto waxa kala duwan ciidan gacan iyo abaal kugu lahay inaad wax siiso oo ku bilowdo iyo abaal lagu leeyahay iyo gacan hore lagu galay inaad ka jawaabayso way kala duwan yihiin labadu waa fiican yihiin laakiin waxa ka sii fiican markaadan cidina ayna abaal kugu lahayn xoolihiisu bixinaya wama li ahadin isagoo cidina ayna u sugnaanin cindahu aktiisa aysan ugu sugnaanin min nicmatin wax nicmo iyo abaal ah oo tujza laga abaal gudo nicmo iyo gacan laga abaal gudo isagoo cidina aysan ku lahayn in badan oo muslimiinta ragii la cadaabi jiray oo Quraysh cadaabi jirtay oo adooma ahaayo dad la liida ah isaga xoreeyay oo ka saaray adoonimadii ka saaro sababtiisa Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu warda illa ibtigaa'a wajhi rabbigi wajhigiisa raadin uu raadinay iyo doonid uu doonayo mooyee wax kale uma bixinin xoolihiisa rabbigi al-a'la ugu sareeyay سرينتو وحوي وعلو الذات إلهي ذاتدي سو خلقك وكبحسنتو عرشي وكسريا علو القدر إلهي شرفتي سوا سريسا علو القهر الدومدي سوا كأذقي هو كأود بدنيا كل ويسوق ليسا ولا سوف يرضى الدون كاسر رالي ونقون دونايو مركو إلهي أتغى أبا القد قنعيا أيو هلي دونا إن شاء الله تعالى سيداسي مركو معناه دو وحوي يمرتدى آية السورة دو وحوي لبدا تشد بالك العديي mid walba meeshuu ku dambeyn doonana waa lagu sheegay adigaana khiyaarka leh midkaad mari lahayd aday ku taala faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur hada wabillahi tawfiq sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam